كراسة قنت هذا ونودد هنجري وري زكريا حاشا فرح وكان داوشة ونعكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسن دعوة دلهانتي ومركلة برنامج كي كرسة أخونت هذا وادو برتين سومالي كلن تي في تضباط قلبا. هذا برنامج كان أيا وحن كسوق هذا أفر خطب أو كلاه محط كتقانا برود الكسومالي وادو دلته حبنتي مؤكتهي مرتي مهما أيها الحرالة تضباط كان. أنت أن وجود جلين برنامج كأن كجوابنا الحرالية تضباط كي هرئية دتك كسو جواب مقاعد ولا هذا بها الحرالية تضباط كي هر وحا شيكتا يقرأ النقضة أن رهدين أيا وحا وتكوني صلاة مركي وسجود كسو نقضي أيا ويسيدي كبوتي مركي ويسيري سلام النقص أو سوي صغادة أيو دانك مديك أيا وحا كفرانتي حاسكيسا مركي وجيستي دانك بديح وحا فرحي هذا شيء سد هذا واحد سببته كبرسي ويسيديسا iyo sababta ay ugu furantay xaaskiisa iyo sababta uu farxay sidaas ayay hal xiraalaha toddobaadkii hore waxaana ka soo jawaabay mahad iyo xaawo colaad hadaba jawaabta oo sax ah waxa ay tahay ninka markii hore waxa uu soo masaafeystay gabar magaalada uu ku mehersaday ayuu isla magaalada uu ku mehersaday asigoo ay joogo ayaa waxa soo gashay salaadii maqrib waxa uu siiri tuko salaada maqrib ma uusan haysan biyo uu ku weysa qaato waa uu gabagabeystay markii uu salaada galay salaada uu wada oo sujuuda ka soo noqday waxa uu arkay biyo markii uu siiri salaada ka baxay soo weysa qaado oo uu eegay dhanka midig waxa uu arkay gabadhii uu soo masaafeystay oo markaas lagu meheriyay aabaheed oo taagan markii uu dhanka bidix u jeestay ayuu waxa uu arkay bisha soonqaad hadaba sababta weysada ka burisay waxa ay tahay biyo ayuu arkay sababta ay xaaskiisu ugu furantana waxa ay tahay isla meeshii lagu meheriyay ayaa waxa ka dhawaay aabaheed sababta ugu farxana waxa ay tahay bisha ramadaan hadaba waxaan filayaa in aad ka wada hesheen markana waa xubintii maxaad ka taqaanaa baro dalkaada waad u dhalatee hadaba xubintan aan ku soo qaadana toddobaadka hore Somali Airlines ayaan toddobaadkana waxaan ku eegaynaa maraakiibta dalka Soomaaliya waxa ay lahayd mashaariic fara badan هذا مشاريع داس وحا كمid aha mashruuca kalluumaysiga hadaba Soomaaliya iyo Talyaani ayaa waxa ku shirkoobay shirkad kalluumaysi ee loo yaqaanay Summit Fish mashruucan waxa la hirgeliyay sanadkii markuu ahaa 1981 waxaana laga hirgeliyay gudaha dalka Soomaaliya sababaha keenay mashruucan hirgelintiisa ayaa waxa ugu weyneed baahi loo qabay lacagaha qalaad iyo ganacsiga dibadda sidoo kale baxaarida Soomaaliyeed si loogu abuuro fursado shaqo oo heer sare ah iyadoo laga faa'iideysanayo kheyraadka uu leeyahay dalka Soomaaliya waxa uu leeyahay laba badood oo kala ah badweynta Hindiya iyo badda Cas hadaba dhererka badahaas ayaa waxa ay tahay 3333 kiiloomitir hadaba qaybtii hore mashruucani waxay bilaabatay isla sanadkii 1981 waxaana lagu howlgeliyay 3 maraakiib kalluumaysi oo kala ahaa محمد MN عثمان جيدي راجي MN فارح عمر إيوه MN 22 أكتوبر لما مراكب أو كلوميسي إيوه هالمركب وين أو لو أديك سدو حاجة يبجين تكلون كإيوه حاجة سهيسين تمراكبته أنت بمشروع عني أو لو يقيني Summit Fish وحمام الكيس وحل صارنا ودي سكودف أو Soomaali إيوه طلياني أو هوس إيمان جري وزارة كلوميسي إيوه غيرات كبدة hase ahaatee maamul xumo daraadeed mashruucan wuxuu noqday mid laga deeriyo maxaa yeelay qasaare maaliyadeed oo lixaad leh ayuu keenay wasaaradda sida daraadeed waxa laga maarmaan